السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا أصحابته سؤال هذا لينكم. عاو حندوني إن نديسو بيو مقال كوبان أو كسابسن سيدة كوغان لهيد أما هبكت كوغان لهيد qofka ugu badan ee soo booqda profilkaaga dad badan ba soo booqda waxa laga yaabaa maalintii inta qof soo booqata marka si ku ogaan kartaa qofka ugu badan ee profilkaaga booqda wuxuu doona ha ahaado marka si dhib yar ayaad ku ogaan kartaa facebookkaaga ayaad soo furaysaa hadaad computerka isticmaalaysid facebookkaaga marka soo furtid ee sidan kugu soo baxo waxaad sameynaysaa waxaad qabanaysaa control U ayaad ku dhufanaysaa control U marka tirahdid wuxuu ku furayaa tab cusub oo fiisos la dhaho okay tabka cusub markuu ku furo waxaad taabanaysaa hadana control F marka taabatid waxaad tagaysaa linkigan ayaad soo qaadaysaa linkigan marka hadii raahid ma waxaad dhigay description-ka linkiga ay dhigayaan linkiga ayaad soo qaadaysaa ani linkiga waa kan network-niga furan yahay marka labada linki ka sare ay ku qoran tahay initial chat friends ka ay ku qoran tahay ugu sareeya ayaad soo qaadaysaa macala quotation-ka ku jira waad ku soo qaadaysaa ka reebin quotation-ka okay isagii quotation-kiisa soo qaad linkigaas waa linkiga koobaad halkan imo control F marka tiri boxka yar ba ku soo boodisoo maaha boxka yar marka ku paste garay control V then control V marka tiradid waa aragtaa datadii meesha ku jirtay oo dhan way isbedeshay waxa ku soo baxay waxa soo ID-yadaas oo dhan halka waxa u taxan oo dhan waa dadka booqday profile-kaaga marka ka ugu sareeya ayaa ah ka ugu booqashada badan hadda aniga kana ugu sareeya kaas ma artid kaas tuugu ugu dambeeyo kaas ugu sareeya kana ku xiga kana ku sii xiga kaas marka kaas ugu booqashada badan baan doonayaa inaan ogaado qofka uu yahay okay halka markaad maraysid ID-gi waad haysataa qofka ugu booqashada badan ID-giisa baad haysataa markaas aad ku soo saaraysaa profile-kiisa inaad aragtid baad rabtaa markaas baad ogaan kartaa qofka uu yahay marka hadaasaa new tab marka tirahdid waxaad ku noqonaysaa network-kii marka laba link waa aniga ku laba link baan description ku soo dhigayaa laba link koowaad waan isticmaalay kii labaad ayaad soo qaadayaa okay kii labaad waa kan linkigan ilaa halka ay ku washa ilaa http-gaas soo qaadaysaa inta hta ayaad soo qaadaysaa soo koobiyay then waxaad timaadaa browser-kaaga imow new tab ma tiri kabtaas halkaas sare halka paste ku dheh marka paste tirayd waxaad ku noqotaa marka tabkaagii hore ee ID meesha ku yaal ID-ga soo qaadana okay ID-ga waa kan labada quotation soo ma aragtid inta u dhaxaysa ayaad soo koobiyeenaysaa koobide new tabkaagii ku noqo dabeetana xagga ku paste garay halka ay ku washay dabadeeda adigoo wax space aan siinin markaad ku paste garaysid enter taabo already waxa qofku ku soo baxay xaggan oo kale waxaad ka arkaysaa qofka magaciisa halkan aan calaamad saaray waxaan u saaray qofka magaciisa hadeer inaadan arag idinku maadaama uu friends-ka ka mid yahay marka laakiin xaggan waxa kaaga soo baxaya barbarkan aan hadeer calaamad saaran tahay iyo qoraalkan ku qoray waxa kaaga soo baxaya qofka magaciisa macnaha gabi ahaanba profile-ka qofka ayaa dhex joogtaa hadeer anu qofka ugu booqashada badan friends-kayga ayaan profile-kiisa dhex joogaa muuqaalkan kooban ayaa rabay caawinaa inuu la wadaago aad iyo aad baad mahadsantihiin fadlan channelka subscribe saara video-gana like saara wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu